الحوين كمرتدو طبعا أنا بحسوس. علي حسين حرسي إن قبيل يسأل الله أن حريستي مركز لا جدعها أو أفهين كلا جدعها وحن كحسوستا أفجدود تيبات قص الجارم مدي كنت إذا قلدي استعمارك لا تشرتي أفجدود تيبات قص الجارم مدي واللو جبراري أدنى جرم بميسيد جعلك وسوتشيسو هجنان تسيدي هجنان إسلام كاسنا قبله هنا برام بريترينيين marka gabadhii caalamka u tirinaysay oo xaawa miro waxay tiri caalamka Soomaaliyeed oo irshiga ka nool kuwii ku caawimi lahaa kama caajisaan annagu kugu cayshnay ilmahaagu kugu cayile ilmahaagu kugu cayilo irkaadu egtaay rabbi oo laga cabsado waxay yiraahdeen biraha maaroobay talyaaniga ila hadlayeen markaas waxay yiraahdeen biraha maaroobay iyo buugagaaga guro talyaani waa bixitimaysaa bunto waxay u kala qaadeen xafiisyada noo xiro xaashidaada guro xaqaadan lahayn xisaabtiisu way isla markaasna talyaanigu wuxuu na baray carruurta barayay in Soomaaliya ay tahay dhulkaygii badda ka shisheeyay lamiya batria iyo ultramare yani waa dhulkaygii buu lahaa annaguna waxaan lahayn biraha maaroobay iyo buugagaaga guro ka tag meesha marka waxay yiraahdeen gabdhihii Soomaaliyeed waxay u kala qaadeen dadkii waxay nabcaayeen isticmaalka la jiray waxay yiraahdeen konton bay ka bilowday waxayna konton nin jiray oo islaamka oo dhan wada karaaday oo gaal la koodahayo soo ka wadun ma dhaw lixdan nin jiray oo la daba geystay waa lumaayay miyuu liibaana helaya nin gaalan laray ninkii 70 jiray oo kolkiis ka tagay oo 10 rubood siistay Soomaali kala tagee talyankii u raacay bal muxuu ku tarayo 80 nin jiray oo diinta saacideen oo siisiyoorow leh soo ka wad soo siisiyooro le naarbaysid sagaashan nin jiray oo diinta saacideen oo soor ku doonahayaan caawa sirag gasha boqol nin jiray oo garkiisii bidhaan cad yahay oo bi'an loo dhigin quraankiina alif ka baran bulshada israacday bal maxuu ka bulahay oo ka taray يعني أنت أقان ولما إلا وقاد بأبضناين لكن قبلها وحي أهايين قبله هم مدودو هاي وايو وحي لقوها القمية وإيغا سميني مركز شير لوغي ما دبسوتي إيو شربيتكي إيو وحي العنا إيو وحي ولن قبلها سمينتي يماشي للصرح عايو إيغا لها وفتي هدوي تجهيو لعقتي waxay ku soo aruurin waxaan weydiiyay gabadha ururka haweenka leegada madaxda oo ay Xaliimo Gudanen la oran jiray iyo gabar kale oo raaxa ayaan la oran jiray iyadana waxay ahaayeen haweenka madaxdoodii bay ahaayeen waxa loo qaybin jiray dambiilaha iyo daabaca iyo koofiyadaha iyo istintiibooyinka waxa inta la gado baa leegada fan looga dhig jiray si u halgamaan قولك كلو نعاومي سو دبد نوغا تيمي ما جير waxay haystaan isku furanayeen waxaan haysan isku furanayeen marka sheekadan maanta intaan ku soo koobi karo waxaan jeclaan lahaa bal inta aan nool lahay in waxna la ka reebo waa sameeynaa ma sha Allah ma sha Allah